بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة كسر دوادة التلفزيون كحسب UBD halkani waa wadada Sodonka ee magaalada Muqdisho markaas aan eegi doono aragtida dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho isla markaasna sida ay u arkaan xayiraad lagu soo rogay magaalada Kismaayo ee Jubbaland iyo xayiraadii Sheekh Shariif Sheekh Axmed isla markaas safarkiisa uga baaqday calaamisaarkii madaxweynaha Jubbaland aragtida dadweynaha ayaan anbaqaadi doonaa mikrofoonka dadweynaha ayaa dhankooda u leecin doona isla markaana sida ay u arkaan xanimaadii kala duwanaa ee dawladda federaalka ay ku soo rogtay xalada Kismaayo yiraahdo la saaray mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed aad iyo aad aan uga xunnahay maxaa yeelay in wadankaanu oo doorasho keeno oo la isku bedelo ninkii keena Sheekh Shariif oo ahay farmaajo Abdullaahi farmaajo asagoo boorso sita Soomaalidu ma aysan aqoon cid aqoonsan male Sheekh Shariif magacaabay beelna kuma magacaabin lacag watana kuma uusan magacaabin wuxuu ku magacaabay muwaadin Soomaaliyeed inuu yahay Sheekh Shariif oo muwaadin Soomaaliyeed oo maanta nabadan naxananayo mas'uul ka ah Ilaahay baa mas'uul ka ah oo asagu oo noo horseeday in maanta Sheekh Shariif laga xiriiro duulimaadyada siyaasiyiinta Soomaaliyeedna la yiraahdo ma duuli kartaan waxa ay ka dhigantaa shacabkuna ma duuli karaan dooni mayno mana yeeli doono wax loo dul qaadan doono ma aad iyo aad baan ugu xumahay xayiraadii la saaray diyaaradaha aada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyo sidoo kale xayiraadii la saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed dawladda uu hogaamiyo Maxamed Abdullaahi Farmaajo ayaa markaan u soo jeesatay inay caburiso ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay u istaagaan dhibaatada loo hayo shacabka reer Jubbaland uma baahna in la xayiro diyaaradaha taga waa ku faraxsan dawladda Soomaaliya inay xukunto hawadeeda farxad saa'ida waliba laakiin waa ku xumaa shacabka Kismaayo in xayiraad la saaro iyo madaxweynihii hore ee ku meel gaarka ee Sheekh Shariif halkani waa telefishinka xisbiga UBD waxaan codbaahiyahan dhex keenay dadweynaha Soomaaliyeed si ay uga dhiibtaan aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan xanibaadii dulimaad ee la saaray magaalada Kismaayo ee dawladda Soomaaliya ay saartay iyo xanibaadii safarkii madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ee ku aadan magaalada Kismaayo أولاً السلام عليكم دمان برشوين الصوماليات ملك سايكون أول شيء مركز حيث وحنا ما عندنا تلفزيون UBD أو آد نوعي أنا سحرية لكو هذا الله أو ديبنا أركتنا مركز وحنا نيجي مركز دولة آد أي فالكاسي وفوضاتي كفوا شيءنا بلاد خلاص وقولي كرا وحن سيد ترى أو ما فكر كيجا وصل شيءنا إنه كبي حسه kana garaabto taaligelina ka bixiso qaladkii loola kacay madaxweynaha hore ee Soomaaliya marka waxaan aad iyo aad u cambaarayna ana fikirkiga cabirayo fikirkaas aragtidaas inay dawladda ku degtay kuna fudaatay waxaana ka codsanayna dawladda una soo marayna jaaniskan fiican oo inasiyan telefishinka UBD inay ka garaabto wadankana aan loo horseedin waxyaalo uu ka imaaday 10 sano ka hor 5 sano ka hor waana maasay ka xumahay xayiraadii la saaray dadka reer Jubbaland oo wadanka intiisa kale oo la qabin dawladdii oo laga rabay maxaa la sinaashada dadweynaha inay ilaaliso ee qofka misalan ka soo qaad Jubbaland maanta ku nool oo shacabka ah xayiraadaas way saameynaysaa markii laga soo tago siyaasiyiinta iyo ay dawladda hayaan waxay u saameynaysaa diyaaraddii toos u tagileed Kismaayo ama magaalooyinka kale ee maamulkaas ka tirsan toos u tagileed markii laga xayiriyo oo la yiri Muqdisho soo marto waxa dhacaysa markaas qarashkii qofka inuu ku laba jibaarmo guud ahaan waxa u maleysaaba meeshii roob laga filayay inay ceeriyaamo ka imaanayso mar walba oo maxaa yeelay dawladda mar waliba ay jibinayso dastuurka maadaama dastuurka uu yahay sharciga wadanka ugu sareeya markii laga soo tago shariicada islaamka jabtarkiisa labaad qodobka 21 wuxuu qabaa in qofka si xur ah uu ku mari karo wadanka meeshuu rabo daraad wixii dhacay waa maqlaynay runaantii dadweynahan si kala duwan ay u arkeen inkastoo loo badan yahayba dawladda habka ay ula dhaqantay siyaasiyiinta waayii dambe bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horreyn waxaan salaamayaa uriyaasha ka socda xisbiga UBD marka ugu horeysa waxaan rabaa anigoo su'aashaas ka farciinayo inaan u tacsiyeeyo mataqaana shacabka
jubbaland xanibaadda iyo handadaadda iskugu daray runtii shacabka Soomaaliyeed waxa uu soo maray marxaladooyin fara badan ayuu soo maray dalkan meel kasta oo taabto waa boob dadka maanta wadanka maamulaya hogaankooda hayo waxa la rabaa boogaha ummadda Soomaaliyeed kala geeyay inay ogaadaan oo si waadax ah ay mataqaanaa ay ugu cadaato arrinta ay sameeyeen dowladda federaalka Soomaaliya waa arrin mid ku ah dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed waxay ku heshiisay dastuurkaas waxa uu dhigayaa qodobkiisa 21 qof walba oo muwaadin ah ee ku nool dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu xaq u leeyahay inuu u duuri karo degi karo meel kasta oo kamid ah dalka jamhuuriyadda waa xuquuq dastuuri ah oo qof walba oo muwaadin ah ee Soomaaliyeed uu leeyahay marka haddii ay dhacday madaxweynayaashii waddanka soo maray Soomaaliya ka samatay bixiyay xaaladda emergency-ga heeday in ixtiraami waayo waa dareemi kartaa shacabka caadiga oo reedka meesha ay uga jiraan waxaan u jeednaa in dowladnimadii Soomaaliyeed iyo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ugu tuntay marka wax sharci ah oo dhowrayo dowladdaanu ay dhowrayso haba yaraatee annagana uma muuqato marka waxaan leenahay shacabka reer Jubbaland waa shacab Soomaaliyeed waxay leeyihiin xuquuq iyo waajibaad waxay la mid yihiin shacabka Puntland waxa ay sameysteen doorashooyin xur ah ay sameysteen oo iyaga is abaabuleen Jubbaland saasoo kale waxay xaq u leeyihiin iyagana inay sameystaan doorashooyin iyagu ay maamushaan sidaas darteed haddii ay dhacdo marka in shacabkiga duumiyo xanibo mataqaanaa gargaarkii loo diido ay dhacdo shacabka Jubbaland waxa kaliya u yahay waxay tahay in iska dul qaadaan gumaysigaas ugu hayo in iska dul qaadaan oo ay ka dhiidiyaan doorkaas ayaa u bannaan